waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد أرضيي عشرة ديني كبرة هودا إياد كلا سعوتين تلفزيون كان قرنك جمهورية سومالان إيه إذا عاد راديو هرقيسة وحنا الناس عن دونا عشرة ديني كسب سنة فصل كاللحاد ساينسكا فصل كاللحاد ساينسكا waxaana idin dhigaya aniga ah macallin Cabdixakiim Maxamed Xuseen waxaaynu ku soo jirnay cutubka 8aad ee fasalkeena 6aad oo la oran jiray fududeynta hawsha mashiinada fududeeya hawshana ilaa 4 makiinado yaryar ama mashiino yaryar baynu soo sheegnay oo kow uu ka ahaa kabaalka laba la oran jiray labana ama mashiinkii yaray fududaay labaadna wuxuu ahaa salaxa janjeera ka saddexaadna waxaynu niri geerarka afraadna wuxuu ahaa khaafiyada marka maanta waxaynu casharkeennii hore ku soo yar faahfaahinay oo aynu ku soo qaadanay kabaalada iyo qaybaha loo qaybiyo oo kabaalku muxuu yahay baynu kaga soo jawaabnay iyada oo la eegayo halkii kaga kala yaalaan baynu nidhi rarka kartida iyo taakadu ama halkii barkinka ama taako ayaa la yidhaahdaa halkii laga taageeriyay barkinka muxuu ahaa kabaalka laga taageeriyay saddex baynu ku kala saaraynay kabaalada saddex qodob baynu ku kala saaraynayoo halkeebuu rarku kaga dhaca ku yaala halkeebay kartidu ku taallaa iyo halkeebaa taakadu ay ku taallaa iyadoo saddexdaasi halka kaga kala yaalaan la eegayo ayaa kabaalada waxaynu u qaybinay saddex qaybood baynu u qaybinay kabaalka heerka koowaad taakada ayaa dhexda ku jirtay oo rarka iyo kartidu dacallada ama hareeraha ayay marayeen kabaalka heerka labaadna rarka ama culayska rarka ayaa dhexda marayayoo taakada iyo kartida ayaa dacallada ama cirifyada marayay kabaalka heerka saddexaadna kartida ayaa dhexda ku jirtayoo rarka iyo taakadu hareeraha ayay marayeen haddaba casharkeennii maanta oo isaguna ku saabsan salaxa janjeera ayaynu halkaa ka sii wadaynaa waa cutubkeennii 8aad baa sii socda waa salaxa janjeera salaxa janjeera waa mashiinada wuxuu ka mid yahay mashiinada ama makiinadaha inoo fududeeya hawsha marka waxaa la doonaya in casharkeena soo socda waxaynu kaga jawaabi doonaa muxuu yahay salaxa janjeera muxuu faa'iidooyin inoo leeyahay mashiinkan yar muxuu ahaa mashiinkan fudud ee salaxa janjeera la yidhaahdaa muxuu faa'iido inoo leeyahay haddaba salaxa janjeera wax kale ma aha salax janjeera marka la leeyahay waa dul janjeedh leh waa dul janjeedha sida sawirka buuggeena ka muuqata waa maxay salax janjeera haddii lagu idhaahdo waxaad ku jawaabi salax janjeera waa dul janjeedh leh bal tusaalayaal ka keen
ashyaa noqon kara ama qalaba noqon kara sallax janjeedh ahaan loo adeegsan karo. marka waxaynu ka jawaabnay muxuu yahay sallax janjeedhaa. markaasay sallaxa janjeedhaa waa dul janjeedh leh. tusaale ahaan sallaanka iyo jaranjarta waxaa loo adeegsan karaa sallax janjeedh ahaan. oo goormaa sallaanka la adeegsadaa ama jaranjarta la adeegsadaa? sallaanka iyo jaranjarta ayaa tusaale u noqon karaa mashiinkan yaree la yidhaahdo sallaxa janjeedha. haddaba sallaanka iyo jaranjarta waxaa la adeegsadaa marka la fuulayo dabaqyada ayaa jaranjartii la adeegsadaa iyo saqafyada guryaha waxa uu fududeeyaana sallaxa janjeedha muxuu faa'iido leeyahay? waxa uu fududeeyaa fuulista meelaha sare. meel kaa sarraysa saqafka gurigoo kale imanka haddaad doonaysa inaad fuusho dee sallaan baad u baahanaysaa. sallaankaasi wuxuu noqonayaa sallax janjeedha oo wuxuu kaa caawiyey inaad si dhib yar u fuuli karto saqafkii guriga. waxaa kaloo ka mid a markaynu dabaqiya fuulayno haddaanay kaabada ama jaranjaro lahayn dee way adkaan lahayd inaynu si toosa oo jooga u fuullo. marka faa'iidada sallaxa janjeedha waa inuu inoo fududeeyo fuulista meelaha sare. haddaba sallaxa janjeedha iminka halkaasi hadduu for example aynu haysano gidaar, bal gidaarkaas halkaa ku yaala. gidaarkanoo dhulka aada uga sarreeya haddaad doonaysa inaad saqafkiisa ama xagga ugu sarraysa ee gidaarka aada fuusho ka soo qaad inuu dherarka gidaarkan yahay tusaale ahaan uu yahayba ka soo qaad 6 mitir ayuu gidaarkan dherarkiisu yahay tusaale ahaan. haddaad doonaysa inaad xaggiisa sare fuusho waxaad u baahanaysaa sallaan baynu u baahanaynaa. sallaan baynu ku tiirina. sallaanka iminka xaggaasuu qofkii halkan taagnaa si dhib yarbu hadduu sallaankaa iminka isticmaalo si dhib yar buu xagga sare ee gidaarka ku gaari karaa. markaa sallaankani muxuu shaqaynayaa qaab sallax janjeedh ahaan ayuu wuxuu kuu fududeeyey inaad si dhib yar aad u gaadho halka ugu sarraysa ee gidaarka ama saqafka gidaarka adiga oo adeegsanaya sallaan. haddii aad sodhan lahayd halkan keligaa ka fuuloo tag way adkaan lahayd. markaa sallaanku muxuu kuu fududeeyey inaad si dhib yar meel sare aad u fuusho. waxaa kaloo taa la mid a haddii aynu haysanno meel dheer for example khaanad dheer oo kale aynu haysanaayo weyn ama wax la mid ah. haddii aad halkaasoo fig sare ah ayaa waxaynu doonaynaa inaynu dhagax xagga sare saarno. markaa halkan loox ballaadhan baynu soo qaadanay oo kale tusaale ahaan halkana dhagax weyn baa yaalla. dhagax baa yaalla. halkaa dhagax halkan uu yaalla aan kasoo barta ba aan idhaahdo ba buu yaallaa dhagaxaasi. dhagax kalena wuxuu yaallaa halkan aan idhahdo waa dhagax labaad ama isla dhagaxii weyaan laba baroodoo kala duwan la keenay. barta ta buu yaallaa. labadaa barood adigoo jooga barta ta iyo barta ba bal ka waran haddaad taa dhagaxan si jooga ayaan u qaadayaayoo xagga ugu sarraysa ee jaranjartanaan gaadhsiinaya. iyo in dhagaxii intoo xadhigoo kale lagu xidho la dul jiido dushan janjeedhka leh keebaa fudud? ardaydu waxay odhanayaan waxa fudud in dhagaxa laga qaado barta ba oo la dul jiido dushan janjeedha. dee dushan janjeedha markaynu adeegsanay waxaynu adeegsanay waa sallax janjeedha ayaynu adeegsanay. markaa sallaxii janjeedha wuu ina caawiyeyo culays aynaan si jooga kor ugu qaadi karin ayaa uu si dhib yar aynu haddaynu isaga adeegsanno ku geyn karnaa meelaha sare.
waxaa kaloo ka mid a markanoo kale la adeegsadaa marka baabuurta xamuulka ah la rarayo ka waran haddaad baabuurkii ku rarayso kartoomo culculus oo gaadhigiina dhulkii waxoogaa ka sarreeya lama gaadhsiin karayo sideebaa kartoomada culculus gaadhiga loogu rari karaa waxaa la adeegsan karaa mashiinka yar ee la yidhaahdo sallaxa janjeedha kaasaa ina caawinaya in aynu rari karno gaadhi xamuul ah sallaxa janjeedha ayaynu ku jirnaa weli sawirka buugga idinku yaalla waa gaadhigii xamuulka hayaan sheegayey qof ayaa kartoomo culculus ku raraya gaadhi weyn kartoomo culculus buu raraya gaadhiga xaggiisa dambe ayaa wuxuu dhigay shay ballaadhan oo adag oo samaynaya janjeedh samaynaya markaasaa kartoomadii cuslaa intoo xadhig adag lagu xidhay ayaa dushii janjeedhka ahayd la dul jiidayaa si dhib yar baana kartoomadii gaadhiga loogu raraya wuxuu waxaanaynu nidhi waa ay sahlan tahay in lagu raro baabuur kartoono culus iyada oo la adeegsanayo sallax janjeedha halkii si toos ah ama joog ah kor loogu qaadi lahaa kartoonnada inaad si in la qaado gebigoodaba oo si jooga kor loogu dallacaa way adkaanaysaa laakiin marka la dul jiido sallaxa janjeedha hawshii way inoo fududaanaysaa ilaan sallaxa janjeedha wuxuu ka mid yahay mashiinada inoo sahla amba inoo fududeeya inaynu howlo qabanno janjeedhkan aynu samaynay oo si jooga looma taagna shaygii ama dushii waa la janjeedhiyey waa maxay faa'iidada janjeedhka ku jiraa janjeedhku waxa uu fududeeyaa hawsha janjeedhku wuxuu inoo fududeeyaa hawsha saad arkaysaan marka halkaa waxaynu ku arkayn sallaxa janjeedha muxuu yahay sallaxa janjeedha waa dul janjeedh leh waxyaabaha inoo qabato waxaa ka mid a inuu inoo fududeeyo inaynu fuulista meelaha saru inaga caawiyaa sida salaankii oo kale iyo jaranjarooyinkii oo kale iyo waxa la midkaa waxaa kaloo janjeedhku inoo fududeeyaa dee hawsha oo sida baabuurta culculus marka lagu rarayo xoolo ama kartoomo culculus iyo wax la mida sallax janjeedha ayaa la adeegsan karaa sallaxa janjeedha markaan intaa ku sheegay waxaynu gelaynaa mid kale oo ka mida sallaxyada janjeedho ka mid ah waa musbaarka maraaraha leh musbaarka maraaraha lehi muxuu yahay musbaarka maraaraha leh haddaan idin tuso musbaarka maraaraha lehi waa kaa way kala waaweyna kuwooga yaryar baan soo qaatay mid ka mid a musbaarka maraaraha leh waynu maalin walba iyo mar kasta waynu aragnaayo isaga laftiisu howlo badan buu inoo fududeeyaa marka kabadhada iyo sariiraha iyo looxyadooda laysku dhadhajinayo waa la adeegsadaa musbaarkeena maraaraha leh aad baa loo adeegsadaa waxaa kale oo isaga oo biraha oo kale in layskugu qabtona waa loo adeegsadaa waxaa kale oo musbaarka maraaraha leh xitaa loo adeegsadaa in lagu qaado baabuurta culculus marka taayiradiiya laga furayo musbaarka maraaraha lihi waa sallax janjeedho ayuu soo gelaya isaga laftiisu musbaarkaa yar ee ay ku samaysan yihiin maraaruhooda sida buuggiina sawirka ka muuqata sawirka buug ee isagoo meel daloolinaya ay ku qoran tahay musbaar maraare leh musbaarka maraaraha lihi waxa uu ka mid yahay horta sallaxa janjeedhaynu ka soo sheekaynay waxyaabuu qabto laakiin kani muxuu inaga caawinayaa sallaxyada janjeedhe salaankii iyo jaranjartii iyo iyagu in la fuulo meelaha sare inaga caawinayeen laakiin musbaarka maraaraha lihi dee in laysku dhajiyo laba looxoo kale ama laba birood laysku qabto ayaa aada looga faa'iidaystaa masaabiirta maraaraha lihi waxa ay leeyihiin waxtar badan bay inoo leeyihiin waxaanay inoo fududeeyaan hawsha ayay inoo fududeeyaan tusaale ahaan ma awoodi karno in walxaha aan gacmaheenna si hagaagsan isugu qabanno
laba birood ama laba looxoo kale inaad isku hayso ma awoodi kartid laakiin musbaarka garaaraha lihi si dhib yar buu laba qabcadoodoo looxah ama bira ah uu iskugu hayn karaa marka wuxuu inoo fududeeyey hawsha giriigga baabuurtu waa musbaar maraara leh sawirka buugga ayaad eegi doontaane giriigga baabuurta waxa weeyaan qalab loo adeegsanayo in lagu dallaco baabuurkii oo kale waxa uu leeyahay musbaar maraarale buu ku shaqaynayaa musbaar maraarale markaa maxaynu soo qaadanay musbaarka yar ee maraaraha lihi wuxuu ka mid yahay mashiinkan yar ee la yidhaahdo sallaxa janjeera sallaxa janjeera waxaa kale oo soo gala qalabada la yidhaahdo kariirad qalabka yar ee la yidhaahdo kariirad kariiraddu waa maxay kariiraddu waa nooc ka mida iyaduna sallaxa janjeera sidii musbaarka maraaraha leh oo kale laakiin bal tusaalayaal ka keena kariirad haddii la yidhaahdo haddaba faashka lagu kala gooyo xaabada iyo ama wax lagu kala gooyo lagu kala jaro ashyaada midiyaha aynu wax ku googoyno iyo irbadaha ayaa waxay soo gelayaan qalabkan la yidhaahdo kariiradaha ama kariirad bay noqonayaan kariiradduna waxay ka mid tahay sallaxa janjeera marka ardaydu way fahmayaan faashku muxuu inoo taraa ama faashku muxuu faa'iido inoo leeyahay mididu maxay inoo tartaa kariirad baana la yidhaahdaa waxaanay ka mid yihiin sallaxa janjeera waana laba dhinac oo janjeer leh oo isku dhegsan oo kale ayay noqonayaan markaa nooc kale oo gaar ah oo sallax janjeera ahi waa kariiradda kariiradda waxaa loo adeegsadaa in walxa lagu kala qaybiyo ama lagu kala jaro ama lagu jaro tusaalooyin ka mid ah kariiradda waxay noqonayaan faaska mindida iyo kuwa la midkaa sida irbadda iyo u fiirso sida haddaba kariiradda loo sameeyo dhinacyadiisu way isu soo dhowaadaan dhinacyadiisu laba dhinac buu leey laba side oo isloob oo janjeer leh way isu soo dhowaadaan ilaa ay samaynayaan gees fiiqan waa halkay wax ku goynayaan sida mididii iyo faashkii iyo waxa la midkahay iyo faashkii iyo waxa la midkahay haddaba halkaa waxaan kaga soo baxayaa mashiinka yar ee sahlan ee la yidhaahdo sallaxa janjeera sallaxa janjeera wuxuu qabto iyo qalabada sallaxa janjeera noqonaya ayaynu ka hadalnay waxaynu sheegnay musbaarka maraaraha leh iyo qalabada kariiraddu inay ka mid yihiin iyaguna sallaxa janjeera oo iyagana shaqooyin kaloo gaara loo adeegsanayo waxaynu gelaynaa waxaa loo yaqaano iyagana geerarka ama la yidhaahdo marshada geerarkuna geer markaynu bal geerarku maxay yihiin waynu ka jawaabi doonaa iyaga laftoodu waxay inoo fududeeyaan hawl waxaanay ka mid yihiin makiinadaha ama mashiinada inoo fududeeya howlaha aynu qabanayno ee kala duwan haddaba waa maxay geerarku haddii layna yidhaahdo geerarku amba marshooyin haddii la yidhahdo waa geerarkii unbaa laga hadlayaa waa koox makiinado ah oo lagu magacaabo garaangar iyo sabarad garaangar haddaad maqasho garaangartu waa shay sida goobo u samaysan oo leh ilko yar ama xanaf bay leedahay sabaradna way ku dhex jiri kartaa sabarad shay sida sabaradda oo kale dee u samaysan marka waa maxay geerarku baynu su-aasha ayaynu qodobkaa kaga jawaabnayo ardayo haddii lagu yidhaahdo waa maxay geerarku waa koox makiinado ah oo lagu magacaabo garaangar iyo sabarad giraanta iyo sabaradda baynu odhan karnaa garaangartu marka ay taabato garaangar kale waa laba garaangarood sawirada waynu ku arki doonaa buuggeena aad bay ugusa sawiran yihiin garaangaraha horta halkay ku jiraan saacadahan aynu wakhtiga ku cabirannaa waxaa ku jira garaangaro oo dhaqaajiya gacmaha yaryare inoo tilmaamo saacadda iyo daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada iyo inay dhaqaaqaan waxaa ku jirta garaangaraha ku jira ama geerar baa ku jira
waxa kale oo ku shaqeeya garaangarta baaskiiladaha oo kale way ku jiraan garaangarahu. markaa garaangartu markay taabato garaangar kale waa ay wareejin kartaa si xajinta ama qabashada looga dhiga mid xoog leh, si ay garaangaruhu ay si adag iskugu qabsadaan. waxa ay lahaan kartaa ilko ay ku qabato midda kale. habaynta oo kale ayaa la yidhaahdaa geer. haddaba marka garaangar ilka leh garaangar kale ay qabsato ee marka mid la dhaqaajiyo ay tii kale sii dhaqaajinayso ayaa la yidhaahdaa nidaamkaas ama habayntaas waxaa loo yaqaanaa geer. haddii haddaba laba garaangar ay leeyihiin dhexroor kala duwan, waxa ay ku wareegaan xawaare kala duwan. garaangarta yar ayaa ka dhaqsa badan tan weyn. laban garaangarood oo labaduba mid haddii la dhaqaajiyo labada tii yarayd baa xawaare badnaanaysa. haddaba baaskiiladda, baabuurta, saacadaha waxaa ku jira oo ay leeyihiin geer ama marshooyin. geerkuna waa garaangaraha isdhaqaajinaya ee wada shaqaynaya. waxaa jira geer aan garaangaruhu istaaban. tani waxaa laga helaa baaskiiladda iyo mashiinada warshadda. iminka sawirada buuggiina idinku yaalla geer garaangareedka saacadaha, waxa garaangarada idinka arkaya biraha yaryar ee wareegsan ee isku dhadhow ee mid dhaqaaqa samaynaya midba midda kale ay sii dhaqaajinayso. garaangarada baaskiiladda oo kale, garaangarada baaskiiladuhu iyo kuwa saacaddu way istaabanayaan, laakiin bal labada giraamood ee ay baaskiiladda ay leedahay iyagu silsilad baa isku xidhaysa, isma taabanayaan. laakiin waa nooc ka mida dee geerarkii, waa kuwa geerarka aana istaaban garaangarahoodu. geer sanduuqeedka baabuurta ayaa ka mida isaguna. garaangaro ilkalahoo halkaa waxa iyagana idinku sawiran buugga, haddii mid la dhaqaajiyo ta kalena ay dhaqaaq samaynayso. halkaana waxaa inoogu xiga khaafiyadaha waxa loo yaqaano. khaafiyaduhuna waxay noqonayaan waa mashiinadeennii sahlanaa qaybta ugu dambaysaynu soo qaadanayno oo ah afraad aynu ka dhiganay. khaafiyaddu waa maxay iyaduna? khaafiyaddu waa garaangar jeexdin leh. khaafiyaddu waa garaangar jeexdin leh. xadhig ayaa la dhex geliyaa jeexdinteedana. waa giraan dhexdana dilaac ku leh. markaa dilaaceeda ayaa xadhig la dhex geliyaa jeexdinta. marka la jiido xadhigga waxaa soo dhaqaaqa walaxda ku xidhan dacalka kale ee xadhigga. haddaba khaafiyadda haddaynu ka jawaabnay khaafiyaddu maxay tahay, oynu le khaafiyaddu waa garaangar jeexdin leh. khaafiyaddu waxay fududaysaa in walxaha si fudud loo dhaqaajiyo. tusaale, weligaa maaragtay iyadoo birta calanka iyadoo calanka la saarayo, calanka xadhig baa lagu xidhaa, dhinac baa la jiidaa, dhinaca kalena calankii baa kor u kaca. calanka marka la saarayo birta waxaa la adeegsanaya waa khaafiyad. khaafiyaddu waxay fududaysaa in walxaha si fudud loo dhaqaajiyo. waxaa jira haddaba laba nooc oo khaafiyado ah sida buuggiina ku qoran, mid joogto ah iyo mid dhaqaaqda. mid joogto ah waxaan leeyahay mid aan dhaqdhaqaaq samaynin oo dhidban oo halkeedaasun taagan, iyo mid marka xadhigga la jiido ama dhinac la dhaqaajiyo iyaduna dhaqaaq samaynaysa oo bedelaysa bosishonkii iyo halkii ay taalay. ma u fiirsatay haddaba ardayow calanka dugsiga oo la saarayo? qofka saaraya calanka waxa uu hoos u jiidaa xadhig, calankuna kor buu u dhaqaaqaa. khaafiyadda ayaa suuragal ka dhigta in calanka kor la geyn karo oo xagga sare birta la gaadhsiin karo. waxaa kaloo khaafiyaddu inaga caawisaa inaynu ceel aada u gundheer aynu biyaha kala soo bixi karno. waa maxay nooca khaafiyadda ee la adeegsaday si calanka kor loo geeyo? waayahay khaafiyadaha iy waxaynu nidhi waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. waa khaafiyad dhidban ah oo joogto ah oo aan dhaqdhaqaaqin, iyo khaafiyadda dhaqaaqda. labadaasaa loo qaybiyaa baynu soo sheegnay. haddaba khaafiyadda dhidban ee kelida ah ayaynu soo qaadanaynaa. khaafiyadda dhidban ah ama dhidban ee joogtada ahi
waxa ay ku dhegan tahay taageere khaafiyadda joogtada ah ma kordhiso mana weynayso xoogga la adeegsanayo macanti xooggaad adeegsanayso mid leeg unbaa culayskiina ku dhacayo weeye la qaadaya ama rarkii la qaadayay in xaqiiqdii laakiin markaa xaqiiqda laga hadlo xoogga aad adeegsanaysa adigu markaad dacal jiidaysa xadhiggii khaafiyadda mar kasta uu ka badan yahay rarka aynu qaadayno sababtoo ah waxaa jira xoog isliseed oo tamar baa ku lumaysa xoogga isliska si kastaba ha ahaatee waxay sahashaa in rarka kor loogu qaado waa taas khaafiyaddan la yidhahdo dhidbanto waxay inoo fududaynaysaa inaynu rar xagga sare geyn karno khaafiyadda dhidban ahay waxay bedeshaa jihada xoogga loo baahnaa in rarka kor loogu qaado oo waxaan u jeedaa marka adu xadhiggii hoos u jiidaysa calankii oo kale tusaalaan adu xadhiggii hoos baad u jiidaysaa laakiin rarkii la qaadayey isagu kor buu u kacayaa haddii halkii aan kor u riixi lahayn waxaan adeegsanaa xoog hoos loo jiido oo innagu xoogga hoos baynu u jiidaynaa rarkiina kor buu kacayaa marka khaafiyadda meel joogto ah lagu dhajiyo waxaa lagu dhaqaajin karaa rar la geynayo meel qofka ka sarraysa ayaana loo adeegsadaa khaafiyaddan dhidbankaa khaafiyadda dhaqaaqdada ah ee kelida ah iyadana khaafiyaddana sida sawirka ka muuqata khaafiyadda dhaqaaqda waxa ay ku xidhan tahay rar bay ku xidhan tahay culayskii la qaadaya bay ku xidhan tahay kor iyo hoos ayaa ay u dhaqaaqdaa marka uu rarku dhaqaaqo kolba jihada uu rarku u dhaqaaqay waxa isku jiha u dhaqaaqaya khaafiyaddii iyo rarkii rarka iyo kartidu waxay u dhaqaaqaan jiha isku mid ah kartida ayaa ka socod badan rarka khaafiyadda dhaqaaqda ee kelida ah khaafiyadda dhaqaaqdada ee kelida ahi waxay fududaysaa kor u qaadista rarka iyaduna khaafiyado wada jira ayaa iyaguna jira oo khaafiyadaha wada jira ama wada socda waxay ka samaysan tahay waa khaafiyad dhidban ah iyo khaafiyad dhaqaaqdo ah marka la ysku daro ayaa la yidhahda khaafiyado wada socda khaafiyadaha waxaa loo baahan karaa iyada oo midkood tahay joogto ta kalena dhaqaaqdo habkan labada khaafiyadood ah waxaa la yidhaahdaa xidhid iyo xanibaad waxaana loo adeegsadaa qaadista rarka fudud waxqabadka afraad si aad biyo uga soo saarto ceel waxaad u baahan tahay haddaad ceel gundheeraad biyo lagala soo bixi kari waayo waxaad u baahan tahay kow inaad hesho khaafiyaddu maxay ahayd garaangar jeexdin leh giraan iyo sabad jeexdin leh xadhig baa dhex gelaya jeexdinta 3 qori oo dhaadheerna waad u baahan tahay xadhig dheer oo adag baad u baahan tahay xadhig dheer oo adag waadaan sido leh waadaantu waa shayga biyaha ceelka ka soo saaraysa sawirkaa haddaba waa idinka arkaya u habee qalabka sida ka muuqata jaantuska 3 qori 2 qori oo ka mida waxaa lagu taagay hareeraha ceelka kii saddexaadna waxaa lagu dhajiyey khaafiyaddana waxaa la dhex geliyey xadhiggii adkaa xadhigga cidhif ka mida waxaa lagu xidhay waadaantii biyaha soo qaadaysay cidhifka kalena adigaa haynaya markaad waadaanta sii daysad ceelka ay biyihii gaadho waxaad soo jiidaysaa xadhigga dhinacii aad haysay sidaasay waadaantii ay kor ugu soo bixi doontaa waxaa kuu sahashay inaad ceelkaa biyaha ka soo saarto khaafiyad nooca la adeegsanadina waa khaafiyad dhidban ah yahay layliyada buugga ku yaala ee ku saabsan casharada layliga koowaad iyo layliga labaad oo iyagu ku wada yaallo laga helayo buugteenna waa inaad ardayga ka soo shaqaysaan layliyadani waxay ku saabsan yihiin waa casharadii mashiinada fudud ee aynu soo qaadanay casharkeennii maantana halkaasaan ku joojinayaa intaynu casharka xiga ku kulmayno waa macalin cabdixakiin oo idin leh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa
wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno